السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسر دوادا برامج جارة برامج كتضبط كان واحد ناس عسين دونا حدو بقدره أنا جوا محمد عبد الرحيم محمد سيرجيتو تضبط كان برامج كوا حمرت يجوا أبوان علي محمود آذن كورنتو أو إن بدن هذا وضع تقانان مرنا وأبوان مرنا وسعفي إن مال بدن إنه كواركتين أيان جعلها إن أبوانه مركو جور رئيس سودو تلفزيون كدلسن تي في قبتيسا مقالة بيدابو إن أبوانه ولو يقانا عدة هاي أذكر وحير نود المرايو تاريخ هذا نسو كوي ومحسنت هاي محمد سيرجيتو محمد دايق مقعي ودميسترن وعلي محمود آذن كورنتو ووغي نانيستيسا هانشرتي waxaan ahay nin ku dhashay magaalada Baydhabo 1979kii ayaan dhashay waxaan wax ku bartay isla magaalada Baydhabo jaamacad waxaan ku soo qaatay dalka Kenya ee Kichada Kiki University soo dhameystay hadda waxaan ku suganahay magaalada Baydhabo waxaan ka soo shaqeeyay dhowr idaacadood oo dalka ah Muqdisho Baydhabo Kenya sidoo kale hadda waxaan ka hawlgalaa qaar ka mid ah idaacadaha ku yaala magaalada Baydhabo mid ka mid ah waxaan ahay abwaan heesa sameeya waxaan ka tirsanahay ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee onkod gaar ahaan kooxda fanaaniinta onkod ee ciidanka asluubta ayaan ka tirsanahay waxaan sameeyay heesa fara badan oo ku amaanay madaxdii dalka soo martay iyo madax hadda joogta sidoo kale heesa lagu amaanayo dalka ayaan sameeyay macallimiinta ardayda ayaan heesa u sameeyay ee qalin jabisay ee dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed maalinta macalinka adduunka Soomaaliyeed waxaan u sameeyay heesa qiimo badan heesay waxaan ku abaaraa dadka taariikhiga ah ee dalka waxgal ku ah sida ardayda macallimiinta iyo mas'uuliyiinta wax qabadka wanaagsan mas'uul maaha waa mas'uuliyiinta wax qabadka wanaagsan ee wax qabadkooda aniga anfacay ma jiro hadda nin dalka mas'uul ka soo noqday oo aniga wax gaar ah ii qabtay laakiin hatta inaan aqoonin baa laga yaabaa laakiin wax qabadkiisii markaan arko ayaan heesa ku amaanaa أبونا وتهساد وصل لابن دونا مجا كورنتو أو أنت بدن سومالي يكون تقانو بل محوك هو بح مجاز كورنتو مركو هراء أول ناس وحوها أوي وحوها عن حوج كورنتو هذا دلك تواجي تلياني دلك الحكومية وصامري وسجعنتك وهي كورنتو مركو حاجة كذا لكن أنا على كورنتو وحالي يوم عابي دولة السياد بري أنا سكول بندقني سكول كأندقني وحكوية اللي مقالة بينما هذا مقع كلا الله بحيي مركا على القلم إني لا أمانة لكن حلقة وحل يجري وبحكي عنك سكول كأندقني أو أرضي كا مركا قبر بقول إنه يشوفتي أو أدوين أو هبر إيهات لكن قبر إيهات هو يسوكرسي قول فرنجير بنو يالله مركا قول عن ترى فرنجير بيسي عندي يجري وحنا قدماته كل حيت ركع صادر سبيو فريز كان كرو فري جرافن بي صادري وحوجا قطعتي دوبي بريسكي اما سوكتكي حدث لو يقان سوكت والله دوبي بريس ولا ودوبي بريس وا ايطاليان سوكت وا انجلش سوكتكي اما دوبي بريسكي يا قطعتي انت لو اركن كاله ترتراس لا مران سو قاتay marka korontada way joogtaa markaan saan u qabanay korontada qabatay dirbiga ugu dhufatay marka ali korontada saas ugu baxay markaan aanaysaad intaas aan ugu gudubno waxa jira marna waxa tahay abwaan oo nin heesa badan sameeyo caan ah oo madaxda dalka lagu amaanayo ayad qayb ka ahayd marna waxa tahay nin suxufiya oo inta badan la wada yaqaano oo deegaanka caanka ayaa tahay bal labadaasi marxaladood markii la fiiriyo midba mid kale aad bay ugu adag tahay wana arrimo inta badan bulshada xaggeeda loogu shaqeeyo bal sidee isku waafajisaa howlahaas waxaan isku waafajiyaa sida marka shaqo aad qabsanaysid waxa ku haboon waqti inaad u sameeysto time aad abaarto qofka hadduu waqti uusan ku xisaabtamayn ma shaqeyn karo لأن saacad inaad ugu xisaabtanto idaacadda saacadna aad ugu xisaabtanto goobta hada shaqada ee dhanka abwaanimada ama kooxda fanka xarunta ay degan yihiin waxaan sameeyay aniga idaacadda waqti baan siinayay oo u gaar ah marka aan ka soo tago waqtina waxaan siinayay maalintii 3 jadwal ayaa ii deganaa jadwal inaan guriga caruurta la qaato jadwal idaacadda aan ku qaato jadwalna aan ku qaato xarunteeda kooxda fanaaniinta ay isugu yimaadaan marka waxaan soo waafajiyay juhdi baan siiyay waqti baan geliyay waan u xisaabtamay in waqtiga idaacadda aan siiyo saacadii aan ka soo tagay markii la gaar aan ka soo tago in saacadda kooxda aan siiyo
kooxdan saacadii laga soo tagay marka la gaaro aniga aan ka soo tago guriga caruurtan saacad waa wax aniga aan go'aansaday inaan inta aan ka shaqeyn karo inta aan ka shaqeyn rag hadduu go'aan u qaato go'aankiisa uu ka dhabeyn karo waa haddii nin go'aankiisa soconay uu yahay goormee kugu dhalatay inaad adiga abwaan aad isu aragto oo aad miro ay kaa soo burqadaan xilliga abwaan in aan noqdo sababteeda ay noqotay baan kuu sheegaya gabadh baan aad u jeclaa muddo waxaan jeclaa 6 sano dugsiga la dhiganay 6 years ee gabadha daba socday dugsiga markaan dhamaysanay gabadhii nin baa waxa igu guursaday oo Ingiriisi ka yimid baa guursaday diaspora dadka aad u dhibeen diaspora aad inoo dhibeen nin Ingiriisi ka yimid baa guursaday marka kaararkii arooska la qaybinay xafladeeda hotel Suxufiya lagu dhigay magaalada Muqdisho saan u xasuustaa kaararkii xafladda hotelka yaa la ii keenay kaar ka mid ah وقصة حنون بدن أنا وين تجي ما يسورين وحن تجي حفلتي بنتي قالوا لي تمدت فيه بقف والبحر الحلقة وقف اللوس يستاجني هاي حفلة أراسكم حد أوصل تلقى شيء حد أوصل وحبيد هايين أنا اللي يستاجي مرك أو بيل فضية وأنا كرنت وكال حفلة أراسكم حد أوصل تلقى شيء حفلة أراسكم نروح أوصل تلقى أنا ما جرينا ده ده كلام وهاي ماله أنا وحوت تلقى حفلة أراسكم وحان أوصل تلقى لبن كوري قبي مكان لي قبي شيك وادر دار ما كوري وماشى abwaanimadii banaanka ay ku soo baxday waa dardaaran markaas la yiri la dardaarmaysa waxaan la dardaarmayaa baan ku yiri da'da hadda jirta ee dhalinyarada halkay hadlaan waan ku jeclahay afka kaliya ka sheeganaya calooshooda inay jirin markaas la igu yiri koronta noo sheega la yiri xafladda arooska aad ugu tala gashay gabadha waxaan ku yiri waxa la yiraahdaa dardaaran baa la yiraahdaa markaas la yiri sheeg gabaygiiya meesha ku sheeg waxaan ku yiri dawgan hablaha kacay da'da maanta joogtiyo danahooda mooyee dadnimo ma eegaan taad dusha ka aragta dooqaagu raacana dibindaabiye mooyee dar ilaah ma eegtee deeqninkii ee basiyo damo cudurro cashaan duyo nimaan lahayn bay doqonoo yidhaahdaan duulka daarta jiifiyo kan doorka saxdaa daa'in inay isma yihiin dumarku soo ma oga daafaha adduunyadu dumarkeenna oo kale daa'in kuma abuurin duulkan la yaabaye damacoodu waa shoo doolar mooyee daa'in ma aysan garanayn daa'in allahayow duulkan lada uuntay dembigoodana dhaafi dumarkuna waa sidaa da'yaree ogaada dooqeena ka ilaashada iyo damaciinaba marka gabadha horteed aniga waxa ma ahayn cali haddii aan dib aan ugu soo noqono dhinaca suugaantaadii bal hastig ugu horeysay oo magaaladana ku gashay oo aad adiga aad curiso bal magaceeda iyo xilligaad samaysay cidda u samaysay madaxweynihii dalka soo maray maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii ku horreeyay anu nama soo marin mid ka dambeeyna ma ogi wuxuu doona allahu aclam laakiin waa madaxweynaha kaliya aniga taabtay wax qabadkiisa aniga aan arkay waxa lahaa mar hore baa la magaceedaba bal miraheeda wax ma ka xasuusta aad iyo aad waxa lahaa mar hore shacabkii ku doortayba Soomaaliyeed baa maanta mar labaad waxay ku leeyihiin soo noqo mudane farmaajo waa tahay waan gartay heestaas in badanna waxaan ka daawaday baraha bulshada iyo aaladahan live streamka heese kale taa jiraan u malaynaya oo aad adiga lahayd oo xitaa aad u qaaday haddii aan maskaxda dib aan u celiyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed garaad cabdicasiis xasan maxamed laftigreen madaxweyne cabdicasiis isaguna markuu yimid sanadihii ugu horeeyay ee waliba labadii sano ugu horeysay yaa waxaan arkay wax qabadkiisii xogaa uu ila wanaag aad buu ila wanaagsanaaday markaas waxaan u sameeyay iyo dad baraha bulshada ka caaytamay min waxaad aragtaysaa ingiriiska jooga koonfur galbeed waxay ka dhacay uusan war u hayn waxa ka socda uusan aqoon u lahayn haddana iska caaytamaya ma awoodo inuu inta yimaado laba nin magaalada Baydhabo dhexdeeda xataa iska daa hadda caasimadda koonfur galbeed waa Baydhabo magaalada Baydhabo dhexdeeda ku gaajaysan xataa inuu galaas biyo u iibiyo uusan awoodin haddana baraha bulshada caay la fadhiyo markaas waxaan sameeyay hees la yiraahdo koowaalna ku shaqeeya ka aytamo kumanteed Allah si kalaambiin in sheego koonfur galbeed meesha la yiraahdo heesta koox baa qaaday fanaaniin ah xidigaha qaranka ee Janaawkay iyo qaaday heesta erayada aniga qoray waxaan ka saaray Ustaad Khalifa kooxdana waa ay ku luuqaysay marka ma jiraan heese kale oo adiga shakhsiyaanta intaad samaysay oo haddana aad qaaday ha heese waxaa jiro erayadeeda iyo laxankeeda aniga aan iska leeyahay oo aniga aan qaaday hees waxaa jirto dawlooy la yiraahdo degenaan iyo nabad macnaha magaceeda waa dawlooy heestaan ugu magac daray waxaa la marka degenaan iyo nabad isku duubniga dulqaad
dowladnimiyo hoggaan dunida loogama maarmo عليها ما سنتهاي رنتي هساسي واحد دريمي كرا قفكي ودانيات أي كود بيسو أي دريمي كرا هسا هذه أنت بدن وحي بدنيهن هي صوت درين له أو أنت بدن كترجمة يا إنه وعيجة ما أنت جرا رنتي وحنا أنت بدن هسا هذا قاضي فنانين عانا أو لوذي قانون luuqdooda iyo soodkooda iyo heebad ilaahay u siiyay dadka inta badan aad u soo jiita waxa jiray heeso kale ee aan aniga aad kugu xasuusto aad adigu siisay kooxda asluubta ay qaadanaya jira waxa kamid ahaa hees la yiraahdo koonfur galbeed ay isku duubanada waa heesaasi waa hees inta badan caana oo baraha bulshada aad loogu isticmaalo goob walbo inta badan munaasabad ama barnaamijyo ay ka jiraan aad looga xasuusto bal heestaas inaad samayso imraheeda iyo bal maxaa kugu dhaliyay waxa igu dhaliyay heesta markaan sameynayay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo koonfur galbeed madaxweyne ka ahaa aniga waxaan ahaa saxafid ka hawlgala idaacadda Warsan yanaha waxaan arkay xildhibaanadii koonfur galbeed والله مالن بإذاعة تجيس إسكاف لقادوني مالن بإذاعة تجي إسكاف هذليه مالن واحد وقولي الشرع دجنته بعرمك يكون فرق البيت يقال لي قربي الدستور كي شرعي يحدن لما يصير كودي أنكربني يا واحد مدول إسكاعتني إيو قلو أيجنا الدبده الجوجو براه بلشيد كوعيتمي مركاسان من فكري waxaan qoray erayga ugu horeeyay aan qoray wuxuu ahaa dulmi ii qabiila dalkeen burburiyay dulmi ii qabiila dadkeen noo dhamaayay dulmi ii qabiila ala qabiila nabadana diiday ilan dulmi ii qabiila dalkeen burburiyay dulmi ii qabiila dadkeen laayay dulmi ii qabiil baa nabadeena diiday waa xildhibaanadii sidii laga rabay ma ay noqon xildhibaano qabiil bay noqdeen وتهدى وديال وحنا مرينا قبيه دحي برنامجka toddobaadka barnaamijka toddobaadkan waxa idin ka soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay halkaad si toos ah ugu daawanaysaan waa shaashada Dalsan TV aliyo waxa marayna qaybihii dhexe ee barnaamijka runtii waan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qiimaha badan iyo runtii aad adiga noo soo hortay
marxaladda saxaafadda markaa fiiriso waaye badan ayaad u soo joogtay oo maraaxil badan ayaad kala soo kulantay bal intaad saxafiyaad ahayd oo mixnadan aad ku jirtay waxyaabihii kuga la yaabka badnaa ee abid aad kala kulanto oo maanta masrax haddii lagu istaajiyo lagu oran lahaa bal ka sheekay bal maxay tahay mid aan walaalahay ilma adeernahay yaa baydhabo waxaa loogu doortay xildhibaan وبعد حلبان هذا waxaa loo doortay gudoomiyihii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya loo magacaa yaa loo doortay doorasho la sameeyay qiira ay qaaday marka qiira ay qaaday markii baan sameeyay markii igu la yaabka badnaa way markii baan sameeyay markaas waxaan ku leeyahay xafidahu Allah gudoomiyaha baarlamaanka warkii raadiyaha ka baxay oo meesha aan ku bilaabay بلاوك عم بلادي waxaan ku wari xafidahu Allah gudin xaqira qaadi aadni waan u jeclaa marka ana isaga aabahay markuu dhintay ani Kenya aan waxbarasho aaday laakiin isaga gabdho ani ila dhashay oo yaryar ya magaalada Baydhabo joogay dukaan buu u furay wakaalada dhinaceeda meel ah gabdhihii gacanta ku qabtay qiira oo inta badan reerka aad u dhashay ها حماستنا way qaaday oo dhanka maarta family ah marka waxaan ku yiri xafidahu Allah gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya doorashadii loo fariistay waxa loo magaca lagu doortay mudane waxaan ku yiri mudane Maxamed Mursal Sheekh Abdurrahmaan xafidahu Allah saddex jeer baan ku cili marka ereyga la yaab ka noqday xafidahu Allah aan ku bilaabay saddex jeer dhexdaan ku sheegay xafidahu warkii baa ku dhameystay markaas waxa lagu yiri warkaale war ma akhrin kowde wala ugu naxay idaacada waxa war ma akhrin baa lagu yiri nin bad amaantay maxaa se wax ka noqday warkii idaacada waa laga balaas baa laga saaray muddo 6 bilood war ma aan gelin markii dhan balaas baa laga saaray oo waxa ay meesha aan ku bilaabay ali wada ma santaa fariinta ugu dambaysa oo maanta dhaxal ahaan aan kaaga reebeyno bahda Dalsan TV maanta maxay tahay awlan horta waxaan salaamayaa salaan qiimo badan qaaya badan u dirnaa guud ahaan madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha حتى ورديب الله كدغه دلسن تي في iyo wiliba idaacadeeda waxa la yahay salaan qiimo badan iyo gudoomo marka xigta hawl qiimo badan baad haysaan dalkaad u shaqeynaysaan garabkiina Allah galo oo waxaan idin leeyahay hore u socdo oo dib u soo eegina marka xigta Soomaali baa la hadlayaa waxaan leeyahay Soomaaliyay isku duubnaanta waa shay qaali ah waxa dalkeena hadda cudur fara badan dalka ku soo batay sonkor dhiikar typhoid malaria waxaas dhan Soomaali markii dawladeeda taagneed ma lahayn liana raashinka naloo keenay waa la baari jiray wuxuu yahay raashin aan la baarin dalka ma soo gali jiray maanta 20 dekad baan leenahay nin walba wuxuu doonay soo degsanayaa cuduradii baan ugu fara batay haday isku duubnaan jirto dawladana garab la siiyo ma jiri lahayn cuduradan faraha badan xataa waa naga istaagi lahayn waxaan leeyahay marka hore isku duubnaan yeesha waxa jiro dad cadow ah hees aniga aan sameeyay waxay tiraahdaa oo hore aan u qaaday Soomaaliy midnimo leeyahay midna waxa leeyahay Soomaaliy sixun wuxuu sheeg sixirba waa ka dareeyay sokeeyaheena qaarba si kala waxa u arkay aan iska samata bixinay Soomaaliyeey hore aan u socono marka Soomaaliyeey sixun wuxuu sheega jiro dalka uu joogo waxa jiro qaar oo dawladnimada Soomaaliya ogoleen waxaan ku yiri dawladnimada Soomaaliyeed socotayo sarakacday sulka in laga jara loo saaxiibayay Soomaaliyeey kaca aan u kacno midnimo jiritaan hormar dawladeena aan taageerno mucaarad haduu wax tirayo 31 sano ee aan soo dhaafnay dawladii 22 sano soo shaqeysay soo burburisay dhaxalkeeda waan aragnay maadaama dhaxalkii mucaaradnimada aynu aragnay hadana aynu aragno dhaxalkii muxaafadnimada dawladda la shaqeynay wixii laga dhaxlay ilaa hore waan soo aragnay waa tahay daawadayaal waxaan intaasi aan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii toddobaadkana wuxuu idinkaga imaanay magaalada Baydhabo halka muuqaalka quruxda badan aad ka daawanaysaan waa Dalsan TV aniguna waxaan ahay Sergito Ali aad baad ugu mahadsan tahay waqtiga quruxda badan ee maanta adiga aad noo hortay hadii aan nahay bahda Dalsan waan ku mahadcelinaa